يس يس أبتي معك كل عمل العقب وقصنا عن محل فرحي والله محي والله حمر باقر حوي لا حول ولا قوة إلا بالله رسول كوعوري عليه الصلاة والسلام مسلمينته واسيدا جسموها كلي مالك الرسول كوعوري عليه الصلاة والسلام مسلمينته واسيدا جسدوها كلي حتى مالي يرحمتنا جركود أنه حنونا إلهي القرآن كسوع وشاقه وتلك الأيام نداولها بين الناس ومعناه بيهي أيام دتك كل دحوريجان إسلام كدبتي وكنفتي سوء ولش عليه ولكن الله تعالى هذا أبتي ما تعشى إنا قرح كل مجد ولكن لقو قص له ما يبتي ما تعلي والله تواصل أسوق الله تتكلم هذا ودو عين كره محاكي ندي قشة مع الشباب هذا ودو عين كره محاكي ندي قشة itus itaabsi oo barnaamij ku saabsan geyga Somaliland looga hadlayo maanta Somaliland dadka ku nool dad aad u wanaagsan aad u qiimo badan ayaa ku nool dad qaar ayaa dad xun oo fara ku tirisa oo aqligooda iimaankooda joogin ayaa ku nool hadana taas ayaa sheeka aad u qosbal aadna dad badan ugu yaabisay ummad Soomaaliyeed oo qarax ku dhimatay oo aad u baabaaday ayaa meedkooda lagu farxaa miyuuna diin soo baran miyuu waalidkiis cilmi iyo aqoon soo barin miyuuna garasho lahayn miyayna xaqiiqda ka jirin taas waxaan la yaabay aadna ula farxay mararka qaarkood wiil yar oo aad u aqli badan aadna u karaamo badan kana aqli badan weyninka iyo yaraanta kuma xirna aqliga ee baabaxsho qof weyn oo waxa arkaysaa gorof ee aqli lahayn taasna waxa maama hore ay ahayd hadda ka hor ayaa dib dhacay waana sheeko aad u qiimo iyo qayo badan sheekadaas oo ku saabsaneed markii oo dib ka dhacay ayaa dad badan soo baxeen dad badan markay soo baxeen oday weyn ha soo cararay war wuxuu dhacay meeshii dib baa ka dhacay war kulligiin soo baxa wixii weyn ha soo baxaan wiil yar oo aad u aqli badan aadna u karaamo badan ayaa gacanta ka qabtay markaas ayuu ku dhahay adeer wixii weyn ha dhihine wixii wax garta dheh garashada ayaa muhiim ah ma ogiye weynin iyo yaraan kuma xirno hadda wiilkan yar arag sida uu u hadlayo iyo wiilkan kale oo Soomaaliyeed oo dhahayo ummad Soomaaliyeed oo dhimatay dhiiga muslimiinta hadii lagu farxa dhibaatada ay leedahay miyoon garan karin miyay dadka ag joogin gacanta ka qaban heer amarka way dhaan joog war ma ahe maxaa gacanta iga qaboweysay waana arinteeni barnaamijkeeni qiimaha iyo qayaha badnay waxa aragta sheeg waxa arkana isku sheegin mararka qaarkood hadii waxyaabaha qaarkood aan laga hadlin dadka way caadeysanayaan xumaanta waa in laga dhidhiyaa dadka wanaagsan la sheegaa taas ayaa guul lagu gaaraa taas ayaa horumar lagu gaaraa تعالي جبك حمر ما أدري قرحي inaad ka qayb qaadato dilka qofka muslimka ah adigoo soo shiraya ama adigoo qoraal ku sameynaya ama adigoo qowl kaga qayb qaadanaya ama adigoo ficil ku fulinaya intuba waa xaraam muqdisho waa afrikaan amni sheeganaysa ha olosho يا نبينا صلوات ربي والسلام عليه وحكسغن إنه يري روحي مؤمن دلا دلكيسي ديغيسنا كفرحة إلهي تبارك وتعالى كما أقبله سننا كما أقبله واجبنا كما أقبله صلاة واجبة صوم واجبة حج واجبة عبادة واجبة لقى أقبل مايو قال رعيا ركوب لي أنا أقول ركوب لي وعرورتي ركوب لي كافل فرع السيب أول بقى هايين waxaan markaa in la iska qabto xaaraantaa weeye ummadda alla kaa dhex qaban geeri baa alla kuu keeni ilaa idankiisa awalba doorshaanada haydeen